isagoo soo dhardaday isagoo soo habsaamay isagoo markaa taagan oo galluuban meel cidla ah ayay gabadhi salaantay. waxay ahayd Maryam. xasan ii waran bay tiri. nabad buu yidhi. waxay tidhi xasan maxaa kugu dhacay abowey baryahan sidaadii hore ma tiiri maxaad aragtay ba xasan yidhi ma aqaan bay tiri laakiin sidaad ila tahay waad caatowda kastoo. wuxuu yidhi xasan waa jacayl yaad jeceshahay ayay Maryam tiri. haddaad wax ila qabanayso ayuun baan kuu sheegi lahaa ayuu yidhi xasan. waan kula qabanayaa wixii aan kula qaban karo ee ii sheeg ayay Maryamna ka codsatay. wuxuu yidhi isna walaal waxa aan jecelahay gabadhan waris aan isku galaasanahay. xasan aad ayuu ugu riyaaqay ama ugu farxay erayadii Maryam. waxay yadna ka codsatay caawa inuu iskeeno isagoo diyaara oo yimaado shaneema misyooni horteeda 7:15. laakiin waxay tiri anna xasan oo hore saaxiib waxaad igu soo qaxaysaa kaysar u dhiiso ardayda reer banaadir arday ka mid ah ayuu ahaa. isagii xasan saaxiibo lilaahiya oo aan la kala dhex marin ayay ahaayeen. awalba waxmay kala qarsan jirin saakana waxba kala qarsan maayeen. arrinta saakay ay la soo kalahday Maryamna waa mid suurtagal ah ama caqliga geli karta. waxayna ka dhigan tahay xasanow kaysar aduu saaxiibkaa yahay oo keeni kara ee ii keen anna waris aan farta kaa soo saaro ma xuma laakiin maxaa ka dambeeyey. xasan markiiba wuxuu doontay saaxiibkii kaysar. wuxuu u sheegay sida ay wax u jiraan iyo sida arrinka kale ugu xidhan yahay. markaa wuxuu yidhi saaxiib naagahan mid bay ku ugaadhsanaysaa markaa iga qabo adigu Maryam anna waris faataxada iigu mar ilayn meelaan jeclaa baa roob iigu da-ay. markaa kaysar halkii uu aqbalaad iyo wax ka keeni lahaa ayuu yidhi wallaahi saaxiib taasi way wanaagsanaan lahayd laakiin caawo xaleel ma lihi. daraarnimadii ayuu meelaha xasan sii galgalay. waxooga kharasha ayuu sii diyaarsaday soo iskaga dhisa caawo gabdhaha iyo barnaamijka ku soo foolan. laakiin ma laga yaabaa quudan jirin inuu qoriyo u guranayo? ma laga yaabaa inayna Maryam runba u sheegeen? xagga xunba iyaynaan ka eegina xagga san aan ka eegno. farda laysku hayo maxaa layskaga faanin? waqtigii la ballansanaa ayaa la soo gaaray. markii uu xasan yimi haddaba meeshii ayuu arkay sudhiiba inaan cidi ka soo horrayn. hadday imanayaane waxoogaa iska sug buu yidhi intuu xabad sigaara sarajooga ku shitay. wuxuu sugaba shaneemada horteedii wuxuu mar badan u dhaqaaq joogsadaba. labadii gabdhood ee meel ka soo baxaba wuxuu isiraa waa kuwan oo way soo socdaanba. markii uu arkay inayna jirin wax salaamu calaykum balihi ama wax ku soo leexanayaba uu waayey ayuu kolka isla hadlay. wuxuuna yidhi kaalay maxay Maryam beenta iigu sheegtay inayna waris karti ay ku keenta lahayn ambuwan ogaaye? miyayna qof wax isku falaya ahayn? dumar aqoon buunu ahayn saa sidaa mabuu yidhaahdeen? imisay dumar hortii ragodeen? imisay nin hanweynoo u hawoodaba hoos u jebiyeen? ama sidiisa ay mid cidlo ama gidaa cidlo ah u dhiibeen? yaa talow ku yidhaa intay goori goor tahay dhanuu u jihayso wuxuu heli karaa inuu tii allah tii u rabo uu ka xusho. gabdhaha suuqa marayee safiyo iyo siraad iyo saxarli iyo malyuun iyo samsam iyo naciim iyo saafi iyo kaltuum iyo salma iyo sucaadi iyo sallo iyo xabiiba leh ee saadaaladiisa iyo sahankiisa caashaqa midba si u tilmaantay ku sifayn abwanadu suugaanta caashaqa. agtiisay dhoobnaayeen kuman dhaban leh oo wacan. indhihiisuse way dhaafsanaayeen gabdhaha midba ta kale ayna ka laalaadin.
meeshii sii joogay ayuu kolka dar alle u quustay dantuna waxay ku khasabtay inuu tigirkii iska goosto oo shaneemada iska galo markuu haddaba soo gaaday kuraastii dadku ay fadhiyeen oo dhexdooda marayo ayuu maqlay cod dhuuban oo dhadig xasan ayuu ku soo jeestay allah bal miyay waris sidaa ugu yeedho dulteed waxay noqotay maryam waxaase la yaab leh caawa oo dhan inuu bannaanka ayada u taagnaa iyadna halkanay faaciyo weynta soo fadhiisa xasan ayay tidhi alla bal miyaase waris ay sidaa u soo fadhiisiso bido intaanad bido ku odhan ayay bido ku tidhaa ama waraaba xanaanay intaanu xasan maryan weydiin waris ayay iyadu waxay tidhi xasan kaysarna miyuunu kula socon isna wuxuu yidhi intuu qoslay adigu waris ma wada aamusnaa filimkii lagu dhammaystay aamusnaana lagaga soo baxay iminka ayaad moodaa dadku inay hadalkii wakti u heleen dee maxaa inoo kala ah ayuu xasan maryan ku yidhi iyadna waxay tidhi caawa waxaa la iga hayaa oo la ii hayaa jazeera nightclub tagsigii agagaarka shabeelle ka qaadayna wuxuu ku hordejiyey jazeera maray dhowr saxan cayaarta galeen mar ay ka nasanayaan iyagu waxoogaa saalada dusheeda ayuu xasan meel halkaa hortiisa ah wuxuu ku arkay gabadhu sii jeedkeega iyo soo jeedkeegaba yaqaan oo saxan kuwa dabacda san ah ama saxan leenta ah nin la cayaaraysa timaheedu garanayay dareyskay xidhan tahayna mid ka qaldamaya mu ahayn waxay ahayd gabadh heega dheero hoobaan la moodo socod iyo hubqaadlo quruxdana ka hodano hufan oo tilmaamaha inta ugu habboon loo habluhu aanay gaadhin waxay ahayd waristuu jeclaa maryan ayuu soo jeediyey wuxuu yidhi walaalo qofka halkaa labada qof u kala dhexeeya miyayna waris ahayn alla waa iyadiibay iyadna u markhaatisan yaa la ciyaaraya ayuu haddana weydiiyey balan sugno horta laga soo dego meesha waa lagu buuqsan yahay bay tiri laga soo deg saaladii labadii ruuxna miyaysan ka durugsanayn ayay soo fadhiisteen wiilkii la ciyaarayeyna wuxuu noqday kaysar